راجعون waxaan rabaa in tacsiyo uga diro walaalkeen Axmed Muuse Nuur ku dhintay qaraxii maalintii dhaweyd asaga iyo intii la dhimatayba Allah u naxariistaan leeyahay ilaahayna jannada ka waraabiyo waxaan rabaa inaan salaamo ummadda muslimiinta ee Soomaalida isugu timid halkan ka soo qayb gashay tacsida iyo ducaynta walaalkeen Axmed Muuse waxaan u maleynayaa waxa ugu la rabo maantay in la isku baraarujiyo ama la isku sheego inay tahay geeridu waa xaq laakiin ficilada dadku ay raggeenu ku dhimanayaan ama madaxdu ay ku dhimanayso ma ka hortagi karnaa mise kama hortagi karno shabaab ma la diriri karnaa mise lama diriri karno anigu waxaan ka socdaa hay'ad amni waxaan aaminsanahay inaan la diriri karno kana adkaan karno meel walba joogaana loogu tagi karo laakiin ayagaana wareerinayo sababtu maxay tahay dadku maanta 9 bilood waxaan ka shaqaynaynay gobolkan hareerihiisa amni darro ka jirta sababta amni darradana ayaga iska laha waxay abuurayaan amni darro saan ugu mashquulna anagoo dhan waxay abuurayaan dad inay iska hor keenaan saan anagoo dhan ugu mashquul sanatarro iyo xildhibaano iyo dad madax oo ka yimid xamar 2 bilood ay fadhiyaan ilaa hadda xal waxa loo gaari lahayahay waxa maanta la xiro caawi kala furayaan ayaana ka shaqaysanaya magaaladan iyo gobolka intiisa dhan waxaan rabnaa ragga cabsidu ku jirto inay iska saaraan sababtu maxay tahay waa dad yar oo aan awood haysan oo aan dhaqaale haysan oo meel ku hoydaan haysan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybtooda 12aad ee hadda joogto gobolada dhexe waxay u diyaarsan yihiin inay shabaab la diraan kana xoreeyaan dalal degmooyinka ay haystaan Xaradheer, Albuur, Galhareeri iyo Ceeldheer talisku haddii la burburiyana inta ka dhaxaysa gobolkan iyo meel kasta ay joogaan way burburi doonaan haddii lahayd waxaan rabaa inaan ka codsado maamulada labada maamul halka jirta inay istiraatiijiyad ka yeeshaan dagaalka shabaab iyo qaraxyada ka dhacay gaalkacay midaysan waliba inaan la kala dhuuman markii wax dhacaan inaan idaacadaha laga dhuuman inaan aaska imaantiisa laga dhuuman in qofku kartiga maalinba qofku dhashay maalinna waa dhimana soo sidaa ma maanta aan dhimanayna ilaahay baa qoray wallahi qofna hormarin qofna ay sidib u dhacay laakiin waxaan u baahanahay inaan si midnimo leh uga hortagno dagaalka shabaab iyo dadka qaraxyada ka shaqeynaya waa run jeedka xiri karnaa wada kasta la istaagi karaa gaalkacay waxa loo diidi karaa in baabuur la arkan baabuurka la joogi karo laakiin markii la yiraahdo qof walbaaba madaxa meerax ku xiro guri iska galo qof walba yimaado madaxna waa la dilayaa qof walba macallina waa la dilayaa waxay u baahan tahay arintan in loo midoobo waxaan ka ballan qaadaynaa in la shaqeyno 100% mar walba aad diyaartii waxaan bilownay inaan ka shaqeyno cidda shabaab taageerta inaan la dirirno ciddii noqotana waa la dirirnaa waa ka sii daranta waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo ragga halkaan fadhiya madaxda rag iyo dumar leh waxaan u baahanahay in la sameeyo guddi degdega gaalkacay wax ka qabta amnigeeda cidda jiiftana kor u soo qaada oo ku cadaysa dadkana jiifay yaa kicin kara dadka sarkaalka booliiska halkan uu maasan yahay waa nin aad shaqo diyaar u ah dhinaca kale sarkaalka qaybta booliiska halkan uu yimaado la rabaa waxa rabaa in la mideeyo magaalada darbi uma dhaxeeyo waa magaalo saas u siman laba taarga baabuurtu kala leedahay laba waxay kala leedahay aan shaqo isku lahayn waxa dad lagu waardiyin karo waxaan u baahnaa maamulada inay ka fakaraan keenaan waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo wasiirka amniga fiqi oo yaqaan dagaalkan iyo sida nimanka xeelada u tahay hadduu maanta noo joogo waxaan codsanaynaa in awoodda la saaro annaguna taageero diyaar balna waa mahadsantihiin